garoolkii berbera ee in badan laga murmaayey ee imaaraad ku dhisayeen ee la lahaa waa ciidan iyo ciidankan muxuu yahay laga qorahaa ciidankii waan ka wareejiyay waa shibil maanta wuxuu noqonayaa habka ugu weyn wiiganna waxaa imanaya kambarigii dhisaayey airboortka iyo taawarka ee u rogaya qalabkii diyaaraddu soo degaya wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn baan marayaa horta masar maa berigii lagu soo jira mid ka weyn waa 5 kilomitir ka weyn oo dhinac walba u bannaan oo baddii ku ag yaalla oo cusub marka qalabkiisa lagu daro waxaanu ku talagelaynaa inuu noqdo garoon dekeda ka shaqo badan oo diyaaradaha caalamka u waaweyn ka qaadaan alaabta una gudbiyaan dalalka xidhan ka dheereeya tareenka ka dheereeya baabuurta haddii la yidhaahdo marka cirkii waa looga imanayaa baddii waa looga imanayaa beriga waa laga imanayaa meeyar magaalada biyaha u badi waddooyinka sii kordhi nabadgelyada sii xaji intaasaan kuu sirdaanaya adiyo barasaabka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa dhaweyto dhexaaseed waxaan saragnay oo tagay qolada Abu Dhabi waynaga air base ciidamada ah si wacan bay u dhiseen wuu dheeyahay heshiiskii aan la galnay ee 15 ah waa sidiisii waa base-kii sidaan u siinay weeyale wax iska bedelin waxaan kula doon oo dawladahan aan u soo jeedin dekadii waa la dhisay waana la kordhinaya waana sii weynaanaysa halkee la marinayaa waxa aad dekada lagu soo rogay miisaanka badan leh magaaladii dekadii waa in tareen loo dhisaa oo tareen u gudbiya halka la doonayay la geeyo ama waa wadooyin waaweyn oo gaadiid waaweyn mar loo sameeyaa marka waxaanu helay fikradii mid ka dhow garoon aan isleeyahay waa ka Afrika ugu weyn baa la dhisay adduunka oo dhan ciidamada iyo shicibka u wada isticmaalaan garoonada marka laga maarmaayo noqotay in garoonkii loo isticmaalo sibil ahaan iyo diyaaradaha madaniga ah oo noqdo international airport isla markaana marka u baahdaan ciidamadu waa isticmaali karaan hadii ay noqoto taasina waxay noqotay horumar weyn oo maanta diyaarad kasta oo adduunka ugu weyn diyaarad kasta oo wax qaado adduunka ugu weyn xataa shuttle-ka loo diro dayax uu ku degi karay garoonka halkaas ay dhiseen waanu ka casraysay kii hore ruushka gebigiisa dib bay u qaadeen adduun yaab la ay galiyeen waanu ugu mahadnaqnaa waa horumar Soomaaliland heshay oo horumar ah insha Allah laba arrin baanu maskaxda ku haynaa inaanu cid u dhakaashana ama inagu haddii isku tiraan sameeyno haddii dekadu furanto oo 2 sano ka bacdi ay dhisanto wadada burca berbera burca hargeysa way xirmaysaa waayo xamuulka jeeray qaranku ma wadaay karo maanta inuu aragnaa inta mashkalooda ka dhacda waliba gawaari yar dhalinyaro aan war haynin maalin waxaad maqlaysaa gaari yar oo fikisa ama taksi ayaa gaari weyn jiro 6 caruur oo 20 jir ah ku dhintay bil walba uu xisaabna waxa laga dhintay marka waxaynu u baahanahay in dalka aynu iska furno xagga dusha oo burciya hargeysa aynu xiriirno burcana ay gobolada bariga waraabiso culayska iyo dekada iyo rarka iyo wixii ka soo baxayna labada wada maraan dalkuna dusha iskaga xirmo priority-ga koowaad waxa weeye sida aynu u heli lahayn wasiirka wadooyinku waa fadhiya dhamaantay waa tan ugu weyn culayska weyn ee nagu soo socda waxa weeye haddii dekadu marka ay furanto ee diyaaradaha cargo-ga inay yimaadaan waxay ila tahay inay dariiqa hargeysa burco inaan noqonayn meel passenger ku mari karo waxaynu u baahanahay oo noo qorshaysan oo aynu isugu tagaynaa ilaa tabarteeda waa ogtiina fikir baan laga rabaa inuu dalka iskaga furo xaggan qoladii oodweyne wadada oodweyne oo jirtay ma aha oodweyne waa wadada qarankii u baahana horena wuu ugu baahan yahay marka xilka had iyo jeer saaraan oday kasta oodweyne wuxuu idhaahdaa bismillaahir rahmaanir rahiim maxaad sheegtay madaxweyne nabade wadadii oodweyne ka war oodweyne ma qaranka oo dhan baa u baahan maanta waxba taa lagala hadhin maayo haddii ilaahay idhaahdo marnaba iyo saddexaad baanu idin mahadnaqaynaa anoo ku hadlaya magaca wafdiga fariintii badan ee soo dhaweynta reer Burco ee odayaasha madaxweyne waan ku faraxsan inuu yimaado waxa ay sheegtay waa fariin reer Burco Soomaaliga waa yaqaana gabayana waa yaqaan duurxulkana waa yaqaana wariyaa waa ninka galbeed soo dhaafo dalka aad soo maro Burco kaale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh